بس نسقيلك يما وقالوا لي ليلى صغير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواذا عاويها أدميga waxaan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sheeko xikmad leh kuna saabsan sirta guusha. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah kaasoo aad u jeclaa inuu mar noqdo qof guuleysto, balse ma uusan garanaynin sida uu u guuleysan lahaa. Waxa uu doonayay inuu gaaro guul. Maalin ayuu la kulmay nin oday ah oo waaye arag ah, noloshana wax badan kasoo arkay. Wiilkii odaygii waaye aragga ahaa ayuu la sheekaystay. Xogaa kadib wuxuu weydiiyey su'aashii maskaxdiisii ka dhex guuxaysay oo ahayd, waa maxay sirta guusha? Ninkii odayga ahaa waxa uu ku yiri wiilkii, waan kaga jawaabayaa aan biri isugu imaano qarka webiga. Sidaas ayaana lagu balamay oo lagu kala tagay. Maalintii balanta markii la gaaray oo labadoodiiba soo xaadireen ayaa ninkii waaye aragga ahaa ku yiri wiilkii, inakeen aan biyaha galne. Biyihii ayay galeen. Markii ay dhexbartamaha webiga galeen ayuu ninkii weynaa madaxa ka qabtay wiilkii yaraa isagoo hoos biyaha ugu riixayo. Wiilkii xaaladii ayaa ku adkaatay ilaa indhuhu casaadaan. Wax yar kadib ayuu sii daayay. Wiilkii wuxuu la soo booday, ma duulan tahay? Wixii ugu horeeyay ee uu sameeyay wiilka yaraa markii la sii daayay waxay ahayd inuu madaxa kor ula soo baxo oo uu neefsado. Ninkii odayga ahaa ayaa wiilkii weydiiyey, markii aad ku jirtay biyaha oo aan madaxa ka hayay maxay ahayd waxaad ugu jecleyd inaad hesho? Wiilkii ayaa ku jawaabay, habo si aan u neefsado. Odaygii ayaa yiri, haddaba su'aashaada shalay i weydiisay jawaabteedii waa tan. Waxa aad doonayso inaad ku guuleysato ilaa aad raadiso sida aad u raadinaysay hawada markaad biyaha ku jirtay, kuma guuleysanaysid. Sirta guusha waa taas. Inaad guul gaarto uma baahan inaad garab ka sugto ruux kale, ee waa inaad garataa inaad garab isku tahay oo aad keliga wax qabsan kartid. Waa inaad barataa 7 del ee guusha: dulqaad, dadaal, dabeecad wanaag, dabacsanaan, daacadnimo, deeqsinimo, dad la socod. Haddii aad la timaado waad guuleysanaysaa.